هذا يا متعجر حرير وأنتي ما أنت واحد إنه نجلس وغيب بروح أفل الدم وسوق الرشاة شدة لكن وقت بدنا بشركة بجرا شركة مرشحة بجرا ولي مركز الدراسة إنه مصر تجلس نجلس وغيب بروح waxay radaan dib u laabto taariikhda Cabdiraxmaan suuq waa nin mucaarada waa nin mucaaradnimadiisa waa adag mowqifkiisana aan bedelin weli bedelin Cabdiraxmaan dowladda Soomaaliya kulli waa dowladeena waa jecelna waa dowladeena dowlad waan u baahannahay laakiin dowladii ayuu dareemay inaysan sidii la rabay u soconin wuu mucaaraday وكوري مادي مركي الدولة اللي حبل جرتاي وكوري مادي والدولة دان سيد الروح موضوع أفكارتي سيا يا محوا مركا حين وقتي إن لو راسقي إن المعارض وأفكي سوته ونقري هاي سنين عسكري هاي سنين لكن قري سي وياي أفكي سوياي أيام على يري ما هذا جرتي محاول هذا يسحب هو شيء بيسا هذا روتين askartiisi baa la laayay kobiyaa lagu duugay waxaa loo diiday xataa inuu shir qabsado loo diiday Kenya waa aragtan waa la hor istaagay South Africa goor la hor istaagay Malaysia waa la hor istaagay Masar waa la hor istaagay waxa weeye nin muxuu ahaay ilaa waqtigaasina nin afkaartiisa ku adag ayuu ahaa kama uusan leexan haba yaraatay sidii ay u taagan yahay ilaa haddana uu taagan yahay waana murashax madaxweyne Cabdiraxmaan waa murashax عندي كرمرشحين تا وأنا كأفكار صح مركز الإرادة معارض نمضة وهي معارض وحوي قارنا وقار قرية وتقارنا وقار قار الله عبد الرحمن اسمه بدل ولي اسمه بدل أنا وعد كلي حاجة وكرا صعداء مرة بدنا ولا سود حتى إن الحاجة السيئة أما سير الله صحري لكن وايسول غير ويسوى ودي مركب عندي كذا عبد الرحمن الكا مدحوينه نمد إلهي بهاي يقول يتحكس إلهي بهاي إلهي قاعد تمجرتها لكن حسدي كذا عبد الرحمن وانن وقال ما ينون قول ما أنت إنه صومالي هو كامل ما حد يقدر كشتا عبد الرحمن علومات حتى ولو أديك سدي فيسبوك لو أديك سدي قولي أنا أنا بقى إنه سي بي لو أديك سدي مال أنا لقى عاين مرة واحد جرت أنا ويدي ونيو دلقات بدري هايرنيو دلقات كان ترى بين صار وعايا هايتا ويقول إن فقارة سياسي مادي إن العايا سيقوي ماشي وأوجك سيد مارتي دلقات كذا له مركو عندي لها عبد الرحمن صور هلا تاجره إلا تاجر كرواي أنا قولي ذاتك تاجر سما كجرا هذي كان واجع لاني أنا كنت أنا تاجرتان وايو عبد الرحمن عنن قري وطمعان واحد لاي سيدرات الدولار يال أدي كاسو ما جرينا يا متقنا سيد نودي سنسي وناكسن ولي واحد لاي قف مرشحة بني آدم كم مركي مرشحين مرشح دقالو بهاي دقالو بهاي مرشح دقالو لاي وحمد المقطع والو كلمة يا حتى $8 $10 $10 $1 والو كلمة يا مرشح حتى دالك يورو حتى مرشحين ترى تاجرها مركب واحد لا حتى أما كمان مغلط دونا أما أديك بحثا الناس وده ده مرشحين ده تاجرتان كل إنه والبابنه وتاجرها ودي ما يو لما أنتي ولا تاجرها نكان لكن مرشحين ده وحوي وانا أكسر أفكار تصحى عايزتا أنا نيجي ضد لي أما ضد لي أنا تاجر مليها مقتل لكن ما نيجي قبل وحال سوق لي سوق عبد الرحمن بدو قتي ونحس لي عبد الرحمن بدو قتي بطا سد حكون سد حبقول إيه صدق إيه سديدك كيلومتر أنا قتي ما أنت سوالف القدر هاي ما أنت سوالف القدر هاي مركان نبض قتي وحوي واسقد عايز رقيصة dadka Soomaalida waxaan la leeyahay matqan waxyaabo qaarkood in la taageero ama la qaato maahan markaasaan waxa uu soo gabagabeynayaa walaalayaal Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan la taageero Cabdiraxmaan waa murashax Soomaaliyeed Soomaalida u taagan aqoonyahana mabdi diinta aad u yaqaana diinta kale ismaaciil aad u yaqaana waa nin lawyer ah waa nin bartay cilmiga federalism bartay waa nin ku adag mucaaradnimadiisa سيدنا الدولة هي وانت وصلي أن لا تاجروا الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ama sida loo iskaaska loo sameeyo mar walba waxyaabaha ugu fiican ay kamid tahay Cabdiraxmaan Shukuur. Cabdiraxmaan Shukuur waa nin akhlaaqiyan fiican, degan, siyaasi leh, afkaar leh, mabda' leh, hadaf leh, la taageerana mudan. Laakiin aniga waxaa jirto hadda Rasul Roble aan aad uga soo horjeeday iyo Farmaajo dad ka mid ah waqtiyaashii xoogaa aad ugu dhalinaa arrintaas. waana dadka waxay u malaynayaan wax iska mabda'iyan waxaan aaminsanahay wixii xasan sheekh aan uga soo horjeeday ninkii sameeyay waa kasoo horjeeda mar walba aniga wixii aan Farmaajo uga soo horjeeday ninkii sameeyay waa ila mid yahay. marka waxaa waaye Cabdiraxmaan Shukuur waxyaabaha aan sameynaa wax ka mid ah in qofka bini aadanka ah uu leeyahay ahdaaf iyo afkaar oo asaga iyo intii ku fakera ay difaacdaan ay mabda'iyan ay sal u tahay mar walba. laakiin haddaad tahay maalin walba meesha aad u guuri karto u guur. aniga aqoontiisa waa laga badiyaa wax badan oo hadda ka sheego ma jiraan, laakiin inta aan kala socdo warbaahinta iyo social media dadka maaragtay xaggaas ka taageero maaragtay si wargareeya ayaa ku jira. runtii waa nin miisaaman dhanka aqoontiisa diiniyan iyo maaragtay madaniyan labada aqoomeed maaragtay nin aad uga dhisan ayuu hadal yahay. waa nin codkar ah, waa nin fikirkiisa si maaragtay nabadgelye ah oo ilbaxnimo ku dheecan tahay runtii u gudbista. marka waxyaabaha ku taageersanahay ka mid tahay ninkan asalkiisa waa burburto marka laga reebo adeerada iyo aabaha iyo isku xaafada ku dhashay. marka kole intaas uu iga yahay wanaagiisa iyo meesha ku dhashay iyo taariikhda ku leeyahay. waa nin aqoon-yahan ah, waa nin maadi iyo diini wata dhisan, inkastoo 7 sano ama 8 sano soo dhaafay nolol kulminayay oo dhib badan oo laga sheegay. ayadana ilaahay mahadiisu hawaaye guushii laga gaaray xaaladii badda Soomaaliya la ogyahay. waxaan u malaynayaa inuu ahaay siyaasadda Soomaaliya inkastoo waqti dheer uu kusoo jiray, haddana waxaan malaynayaa xilliguu soo galay inuu ahaay xilligii maxkamadaha ay burbureen ayuu wuxuu u galay dib u heshiisiintii dhanka asagoo matalayo dhanka dowladda dhanka oo mucaaradkii. waana nin koley tay ahaantiisa iyo wuxuu yahay loo ogyahay, koley ma diidi karna shakhsiyadiisa wuxuu yahay. marka ilaahayna waan u rajeynayaa inuu waddankan isagoo kaleeta u baahan yahay xaqiiq markii laga hadlaayo inuu mar uun hoggaanka dalka taabto. sababtoo ah hoggaanka dalka qof kasta wuxuu sheegaa inuu wax fiican ka qaban doono. marka asiga waxaan aaminsanahay in loo dhiibaa inay fiicnaan lahayd 4 sano soo socoto. waana taageersanahay kolley wax kaleeto hadda aan ka sheegaana ma jiro. ninkan Cabdiraxmaan anu marmar waxaan is idhaahdaa wuxuu la mid yahay Obama oo la yiri galmudug madaxweyne ka noqday. capacity-giisu waa ka weyn yahay capacity Soomaaliyeed xitaa uu ka weyn. waa adigu Obama kaale galmudug ama Hirshabelle ama udhiib baydhabo udhiib waa saas oo kaleeto qiyaasta aan ka bixi karo. waxaad tusaale kuugu filan u fiirsa wax Soomaaliya ka dhacaya markaad fiiriso. waxbaa maanta headline ka saaran news baa jira, ragga mucaaradka ah waxay sugaan Cabdiraxmaan wuxuu yiraahdaa meeshuu falaarta u tuuro unbaa loo eryadaa. banooniga halkaas oo loo eryadaa. marka way sugaan role model uu yahay. marka qofku wixii ilaahay siiyo asaga ilaahay siiyo lagumana xasdo, lagamana xumaado. ilaahay baa siiyey. waxyaabaha uu uga soocan yahay inta kale waxaa ka mid ah luqad haddaad taqaano, luqadda finishka qofkii si fiican u yaqaano waddankaan joogno wuxuu fahamsan yahay thaqaafada ilbaxnimada waddankan luqaddaa xambaarsan wuu fahmaa. haddaad Swedish taqaano xadaaradda waddankaas iyo ilbaxnimada civilizationka waddanka iyo dadka waxaa xambaarsan luqadda. haddaadan luqadda aqoonin wax kasta aqri ma kuu dhaadhacayo, xitaa hadalka dhadhankiisu ma kuu daadegaayo. Cabdiraxmaan marka wuxuu ku hubaysan yahay aqoon carbeed, thaqaafo carbeed, civilization carbeed, mid qarbi iyo midda islaamka. saddexdaas waxaad ka fahmaysaa marka uu hadlaayo meelaha uu referensiga ka soo qaato waa aayad quraan ama waa xadiis ama waa hadal kaloo mantiq ah. halka dadka kaleeto qaarkood leeyahay de anigu aqoon malihi, aqoonteedu dhinacaas kuma fiicno ama isagu markaan la hadlayo dad Soomaaliya oo muslina
وأنا أقانا عبد الرحمن وبخرني صحيح عاقي برجيقا ربي بركة كل رأي وكان بحنانيو ارتيني بربيريو بداني صعشي بيني أرد قابني دا